ما أروح كم بجيسنا جريدة عدوي جريدة واحد قفل برنا كمدنا مالنا الآسي دونا مالنا الجنازة وتكم دونا لكن واحد كان يسوق كان واحد تأسيد وحشي المدلة البحر المدلة اللود اللي وراك كان تاسع نود كويسة أول ماشي وكل انتري كنت ملك فوق مال الجوجين حتى أنا مكان مقلة أخبار تيسرون تفضل كتابك سوق الرواية وحيقول قاعدة تدور ساعة إنك تصاب حقل كيف أنرو ما يستوى إن ولكن أول جريودي أول الله أنها يستوى وحسيت وكان كنت تراين هالكن ما أنت تعال كنت أنا إيدا إن فكرك يعول دلي يضدك لما تكاها إنه ولي جرو إن فكر كاس دوري يتوصل الكهر أثرتي للإصاء أساستي واحد مطقوهر سيادتي لابد كميدا قمتالا لمدلي ميد كميدا أيها إسكي قورعي صدح كميدا قبري كجرتا ما أنتنا قفل بوصة مالي وكعب سنة يا فكر كاس إن كستوى عنون نمد إنان ولكن عول برديقي سي جريز سغن نمد هذا ما كنتي dadkii halkan soo istaagay intooda badan kama istaan hadlay waxa walaalkeen dilay inuu bari anaga dili karo in kulligan aan dilku wada xukuumanahay in qof walba oo Soomaaliyeed hadii wixii awil iyo dadkii la midka ahaa ay ku dhinteen aan loo istaagay sidii lagu baabi'in lahaa oo loo dagaalami lahaa oo shacab iyo dawlad hooyo iyo aabe dhalinyaro iyo waayeel inta baan loo istaagay inuu yahay wax nagu soo maqan waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka rajaynaynaa walaalkeen u naxariisto iyo dadkii kale la midka ahaa awil isaga sheekadiisa soo bandhigay isaga Soomaaliya u hiiliyay isaga 18 sano u dambeysay dawlad dhisida iyo taabagelinta dawladnimada Soomaaliya ka shaqeynayay laakiin waxaa jira kumanaan qof oo sida awil kala qiimo badnaa dadka naga dilan oo baahanahay inaan u istaagno inuu qof kale naga dhiman inaan fikirkaas qof kale uusan naga dilin inaan sidii xoolihii meel isugu imaanno maalin ku weeynin aan noqono dad ka falceliya dhibaatooyinka ku dhacay waxaan idinku soo gabagabeynayaa dardaarankii walaalkeen awil uu nooga tagay oo runtii ahaa dhaxal ummadda Soomaaliyeed uu uga tagay qof walba inuu ku camal falo Soomaaliya aaminsan inay cagaheeda ku istaagayso waxaan u baahanahay inaan ku celcelino walaalkeen awil wuxuu yiri qof kasta oo Soomaali ah oo neefsanaya Soomaaliya ayaa u baahan maxaa yeelay waa sakaraad waxay u baahan tahay daryeel waxay u baahan tahay marxaladda maanta ay ku jirto in laga kiciyo marka haddii ay dadka Soomaaliyeed aysan isku duubnaanin wax horumar lama gaarayo 10 qofood ama 30 qofood oo Soomaali ah oo talada loo dhiibay kaligood waxa uu qaban karaa taas inaan yaqiinsano dardaarankii walaalkeen uu noo noqdo shidaal tacsidiisa kadibna dadka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa inay u istaagaan inaan mar dambe qof Soomaaliyeed silac nooga dhiman inaan mar dambe qof Soomaaliyeed si waxshinimo aan looga dilin inaan qof dambe oo Soomaaliyeed meedkiisa cadda meel aan ka soo qaadin mar kalena walaalaha Soomaaliyeed halkan isugu yimid runtii anigoo aad u qiiraysan anigoo aad uga xun anigoo aad uga murugaysan waa idin la qaybsanayaa waxa kale oo jira awil xaasas iyo caruur ka tagay maanta aan nooga baahnayn nolol laakiin nooga baahan inaan qulubtooda ka warhayno inaan salaanta u badino sida aan saaxiib awil ula ahayn oon halkan isugu nimid ayaa waajib inooga saaran yahay inaan xaasaskiisa iyo caruurtiisa iyo dadkii uu ka tagay uga warqabno u salaamno waana mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.